Burj Khalifa waa dhismaha ugu dheer meeraha aan ku noolnahay ee dhulka. Waxa uu ku yaalaa magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta, waxaana milkiyadiisa iska leh shirkad ama company la yiraahdo Emaar Properties Real Estate. Dhismahan waxa uu haystaa world record ama rikoodh caalami ah oo ah inuu yahay kan ugu dheer dunida. Dabaqan waxaa la bilaabay dhismihiisa 6 January 2004, waxaana la dhameeyay 1 October 2009, waxaana si caadi ah loo furay 4 January 2010. Ka hor Burj Khalifa, waxaa dabaqa ugu dheer loo aqoonsanay inuu yahay Taipei 101 oo laga leeyahay waddanka Taiwan. Sida magaciisa ay ka dareemi kartana, wuxuu ka koobnaa 101, wuxuuna uu haystay rikoodhkaas 2004 oo ah xilliga la furay ilaa 2009. Burj Khalifa dhererkiisa waxaa lagu sheegaa inuu gaarayo 828 mitir. Waxa uuna ka kooban yahay 163 floor ama dabaq. Wuxuu kaloo leeyahay 900 oo apartments ah. Wuxuu kaloo leeyahay 304 oo hotel rooms ah. Qarashka ku baxay Burj Khalifa waxaa lagu sheegay inuu yahay 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Ujeedka ugu weyn ee loo sameeyay Burj Khalifa waxa uu ahaa in la soo jiido indhaha dalxiisayaasha ku nool caalamka. Hadafkaasna waxa uu noqday mid la xaqiijiyay maadaama la sheegay in sanad walbaba uu soo jiido dhismahan 1.8 milyan oo dalxiisayaal ah waa sanadkii. Si kale markii loo dhigo, waxaa la dhihi karaa in dhaqaalaha waddanka kor loo qaado oo aan kaliya lagu tiirsanaanin oilka ama naftada waddankaas Ilaahay ku manaystay. Burj Khalifa waa dhismo dhanka isticmaalka ah la dhihi karo multi-use, yacni uu leeyahay goobo xafiisyo oo lagu shaqayn karo. Wuxuu leeyahay dukaamo retailers ama tafaariiqda loogu talagalay oo ay ka adeegan karaan dadka halkaas deegaanka ku ah ama dadka dalxiisayaasha ah oo imaanaya halkaas. Sidoo kale waxa uu leeyahay hotels loogu talagalay in la dego, waxaana laga heli karaa waxyaalaha daruuriga u ah aadanaha sida gymka, library-ga, goobo kulamada lagu qabsan karo ama xafladaha. Sidoo kale waxa uu leeyahay club nights oo lagu caweeyo habeenkii. Sidoo kale wuxuu leeyahay suuqyo adeegyadii u dhameystiran yihiin. Wuxuu leeyahay pools loogu talagalay dabaasha iyo qofka inuu nasashadiisa ku qaato. Waxaa kale uu leeyahay restaurant joog ahaan aad u dheer. Jooga markaan ka hadlayno waa biyaanada ama dabaqa uu ku yaalo, waana dabaqa 122, kaas oo ay dadka jooga ama halkaa ka cunteynaya ay ka heli karaan sidoo kale view aad u qurux badan oo halkaa magaalada ay ka daawan karaan ayagoo waqtigooda cunada ama nasiinada ku jira. Waxaa kale uu leeyahay amaba loo diiwaan geliyay dhismahan inuu yahay world's highest observation deck. Waxaa laga wadaa waa barxad weyn oo ballaaran oo loogu talagalay dadka dalxiisayaasha ah in ay ka daawadaan magaalada view-geeda ama muuqeeda sida dhismayaasha ka hooseeya. Sidoo kale waxa uu leeyahay dabaqan 57 elevators ama wiishashka dadka qaada, kuwaasoo ah kan ugu xawaaraha badan caalamka. Waxaana la sheegaa inuu yahay kan saddexaad ee caalamka ugu dhaqsiimaha badan markii laga hadlayo xagga xawaaraha. Waxaa ka horeeya kaliya labadaasi waa Shanghai Tower oo ku yaalo magaalada Shanghai iyo CTF Finance Center oo ayadana ku taal magaalada Guangzhou. Sidoo kale waxa uu leeyahay jaranjarada dhaqaaqda ama socota oo rolling-ka sameynayso oo ah 8 xabo. Dhismaha Burj Khalifa waxaa ku hareeraysan dhul aad u weyn oo loogu talagalay in lagu beero cagaarka. Sidoo kale fountain-ka waxa loo yaqaano oo ah structure-ka biyaha firdhinayo, waxaana lagu sheegaa in uu dherer ahaan shoot gareyn karo ama biyihiisa uu gaarsiin karo ilaa 150 mitir. Waxa uuna leeyahay 6600 oo lights ama leerar ah oo noocyo kala duwan ah. Dhererka dhismaha Burj Khalifa waa 3 jibaarka Eiffel Tower iyo 2 jibaarka Empire State Building. Shaqaalaha ka shaqayn jiray dhismahaas waxa ay gaarayaan maalintii 10,000 ilaa 12,000 oo shaqaalo. Markii laga hadlayo dhanka
in la dayactiro ama muraayadihiisa in la nadiifiyo ay qaadanayso ku dhawaad 3 bilood. Waxaa meeshaas ka muuqata in dhismahan si loo helo ama loo hirgeliyo ay ku baxday lacag aad u fara badan, sidoo kale ay ku baxday material qaali ah oo ayagana lacag badan. Sidoo kale teknoolajiyada oo laga faa'iideystay ayaa qayb ka ah ama suurta geliyay in maantay uu noqdo dhismahan kan ugu dheer caalamka.